isduulaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil ay weheliyaan madaxa xiriirka kubadaha kolayga iyo laliska iyo waliba tababaraha kooxda kubadda baasidka ee magaalada Berbera ayaa caawa mar ay waramayeen telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka warameen kooxaha cusub ee haatan u safaraya kubadda kolayga ee gobolka saaxil ee isugu jira Serie A, B iyo C ugu horeyna waxa halkaasi ka soo jeeday isduulaha dhalinyarada ciyaaraha ayaa mahadnaq boogadi waxa uu soo jeediyay madaxa kubadda xiriirka kolayga iyo laliska iyo waliba tababaraha kooxdaasi garoonka baasidka waa garoonka qulay maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya ee ka dhisan oo goobta qula lagu ciyaaro habeen waxaan u soo marnay dariiq dheer halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada basketballka ee gobolka waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa madaxa xiriirka ciyaaraha kolayga iyo laliska Abdiwahaab halkaasi sidoo kale hadal waxa iyaguna ka soo jeediyay madaxa xiriirka kubadda kolayga iyo laliska iyo waliba tababaraha kooxda kubadda baasidka ee magaalada Berbera waa laba kooxood oo gobolka saaxil ka sameeysan oo waa A iyo B waxa weeye iyo C waxa weeye waxaad aragteen tacabka waxa weeye ciyaar lagu ma helin waxa loo maray jid dheer rajo wanaagsan himiladii gobolka waxaan kaloo halkan ka xusayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan oo la gacan geysta oo imikana afar garoon ka wada gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera oo mid ka mid yahay garoonkii kubadda kolayga saddexdan kale leeyihiin food acti halkan waxa taagan kooxii gobolka saaxil waxaana uu kala qaybsan yihiin dhowr qaybood oo ah A iyo B iyo C waxaanu aasaasnay kooxahan kooxda gobolka eeda waxaanu aasaasnay 13 bishii 6 2013 maanta waa 15kii waxay marayaan heer aad u wanaagsan iyagoo guulo badan ka soo hooyay Hargeysa iyo Burcaba run ahaantii waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maayirka oo nala garab qabtay halkaasi iyana waxa ka hadlay kabtanka kooxda iyo waliba gudoomiyaha kooxda kubadda baasidka ee ku ciyaarta magaca dawladda hoose magaalada Berbera oo dhamaantoodba ka waramay kooxahaasi sida ay isu diyaariyeen mahadnaq u soo jeeday maamulka degmada iyo gobolka Cabdisalaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera.